daawadayaal barta si toosan ugala socotaan oo warbaahinta iftiin Somali TV waxa qodka si toos ah ugu jira siyaasi Shabcaan Yaasiin Xasan oo ku sugan dalka Canada ahna siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Awdal ee qurba joogta ku soo dhawow Shabcaan warbaahinta iftiin Somali TV see ayaad u aragtaa wasiiradii u magacaabay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro fariinta aad reer Awdal iyo shacabka reer Soomaaliland halkan u marnaysaana maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم بان ولا كو سلامية وانا دوهي إجنير عبد الرحمن يهو الوضينا دا إفتن سومالي تي في ولا هدان كسو دوادو سؤالة هادي ويديسي وان لباو كالقاتو مركا ورورتا وحان هنباليين يا وان سو دوين يا مدحوينها عصب سومالي لان عبد الرحمن عبد الله عيرو يو مدحوين كوحيينكا محمد أو علي عبدي oo siyaasiga ugu sareeya waqti xaadirkan gobolada galbeedka loona daba fadhiisanayo inta markan ka tago waxaan hambaliyo guud u dirayaa dhammaan wasiirada la magacaabay waxaan leeyahay ilaahay haynigu asturo xilka kuwii dadkooga iyo dalkooga daacadnimo iyo sinaan iyo cadaalad ugu shaqeeyana Allah hayniga dhigo inta waxa ay raacaa oo si gaar ah ugu hambaliyeenaya wasiirka warfaafinta Somaliland أحمد ياسين شيخ علي أيالي أحمد ياسين شيخ علي أيالي وانين هولكرة وانين داعدة وانين داديقانة وانين داليقانة هورتا الشخصي ugu mudnaa hadii raa awdal la xuli lahaa ayuu xushay madaxweyne Cabdiraxmaan waanan ku hambalyeynaya waanan ku hanweynahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale inuu wadi doono uu howlwadeenka ugu kartida badan noqon doono wasiirada وانا نين هورا لو سو تجابيه oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka kankii ka horeeyay horta Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale waxaan leeyahay adeer hambaliyo waxaanan ka rajaynayaa oon kugu ogahay biriishkii isku xiri lahaa Somaliland iyo gobolada galbeedka inaad tahay intaasi adigan kugu dhaafaya waan ku hambalyeynaya aadna waan ku soo salaamaya su'aasha labaad ee weydiisay haddaan u gudbo dadka reer Awdal maxad hal iyo laba oran horta reer Awdal waa mido de waxay doorteen isbedelka ay doorteen waxay ugu codeeyeen simug iyo miisaan marka dadka reer Awdal waxaan leeyahay xukuumadda cusub ee curdinka ha loo kaadiyo jaanis ha la siiyo waqti ha la siiyo haddii xukuumaddaasi wax isbedeloo muuqda aynu ka weyno markaa way noo bannaantahay inaan macaaridno inaan wax ka sheegno laakiin waqti xaadirkan dadka reer Awdal waa dad aqoon-yahana waa dad waxgarada waa dad wax fahansan waqti xaadirkan in xukuumaddu soo dhaweeyaan mooyaane wax kaloo iyaga laga filan karaa ma jiro xukuumadduna xukuumaddiinii soo dhaweeya wasiiradii ugu habboonaa gobolka kasoo bixi lahaa way kasoo baxeen aad iyo aad baan u wada hambalyeynayaa dhammaan 6 wasiiro gobolka Awdal kasoo baxa iyo adigaba aad baan kuu salaamayaa injineer